وأوقتين ورابع نيكي ورابع علي ورابع أصابنا وحو مالكست تغو الألقس كير أيها الشباب كبيرو يري أيها النحاس waxaa la rabaa la sheegaa laakiin aniga runtii conceptiga midnimada baan inta badan ka hadlaa arinta ku saabsan senator Dube waa saaxiibkay walaalkay Usman Dube waa ninaan iskuulkiisa soo dhigana dugsiga sare kaas balbalaare marka nin intii uu sheegay xogaa uu ku daray laakiin intii uu sheegay asaga ka dhibadnaa senator Dube miisku ku dul socon jiray waagaas isagu anuu dhulkaan ku socday marka senatorka annaga midnimada dalka Soomaaliya ayaa runtii ka shaqeynay jecelnahayna qasabna ma jiro laakiin waxa halkaan u joogtid adiga iyo senatorada kale waa in midnimadii dalka Soomaaliya hal dal yahay haddaan u aqoonsan lahayn dal kale Soomaaliland inuu yahay wax kale ay noqon lahayd arintu marka waxaan ka hadli jiray waa waxaan caado u ahayn dadka koonfurta lama taaban jirin sida hadda senatorku uu dhahay Puntland baad waxa tiri marka xilka wareejinays war cali xoosho u taataabo lama taaban jirin dadkeena koonfurtu indifferent waan ka ahayn waxa ka socda dalka qaybs laakiin nimanka soodayaasha ayagana taataabta senatorow cadaalad baa la rabaa dhaqanka Soomaalida kuma jirto cadaadis inuu xal keeno weligeedna ma dhicin Soomaaliland waa ka sii xaq jirta iyagoo magaalooyinkoodii iyo dadkoodii bannaan waran oo roob ku daayo oo gaajoonaya oo dhibaatoonaya ayay 30 sano ka hor isdhiibi waayeen marka walaalow iyo aan wada hadalno iyo sidaynu Afrika u qabsanaa wixii xalay Minnesota ka socday wiil yar oo inaga aba dunida gilgilayay waxa jiray intaasan ka horeysanay oday nabadoon oo reer Burca oo Xusuusle la yiraahdo marka wuxuu arkay Burco lagu soo dhaweynayo Suldaan Rafle Guuleed oo dowlad ka yimid wardheer dadna wuxuu Rafle mukum ba garanaysan isagoo suldaanaha horta miya garanaysan berigii hore marka wuxuu yiri Rafle annagoo caruur ah soo wada korno geelan wada raaci jir mar dhaxana isagoo fallaago oo intay xayal salaasay istilan qorisita baan garanaya haddana isagoo boqorka Gubcadliye Ibraahim oo doolodhan u taliyaan garanaya marka horta Ahmed oo dhalinyaro ah oo ciyaar iskuul ah oo abaabul badan anuu baa garanaya iskuul iyo isku xaafad halkaas aan ka soo bilownay mar dambana isagoo jabhadaho fallaagaho cadaada doorasho kaga jiro wixii dawladdu dhaqaale haysan inta cadaada geysay musharrixi ka adkaan gaaray oo madaxweyne ku sigtay